بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد ودرسيني تفسير القرآن كها رمضان كأنا قلت لك لي جزء عام ودرسي سدحات هي سورة عبسة أيضا suuradihii labadii suuradood ka horeysay la mid tahay waa suura makiya waxay soo degtay inta nabigu sallallahu alayhi wasallam Makka ka hijroonin quraanka marxalada soo degayna waa ka soo sheekeynay waxyaalaha mabaadiida uu ka hadlo inta badan suuradani qaybteeda hore waxay ku bilaabanaysaa عنان أسلوبيسن أما لطيفا ونبي صلى الله عليه وسلم لو تشيدينيو ودعدو نبي صلى الله عليه وسلم يسقو سي يسيري كدبنا الله تبارك وتعالى سيدو نبي صلى الله عليه وسلم وتوسينيو أي كوب الله منيسا كدبنا waxaa ku xigi doonto laga warramaya quraanka kariimka iyo sharaftiisa ilaahay aayaadkiisa iyo sharafta ay leeyihiin iyo inay malaa'ikta gacmahooda ku jirtaan suxufta quraanka kariimka ama aayaadka rabbi qaybta saddexaad waxaa laga hadli doonaa bini aadamka iyo ilaahay tabaaraka wa tacaala nicmooyinka uu galay laga soo bilaabo abuuristiisa adduunka markuu joogo iyo ilaahay tabaaraka wa tacaala sidoo ugu diyaariyay wuxuu ku noolaan lahaa iyo markuu dhinto xataa sida loo karaameeyay oo aan dhulka korkiisa looga tagin meydkiisa xataa yaani la aasay oo qabri loo sameeyay intaas oo dhan baa laga soo hadlayaa kadib waxa laga hadlayaa bini aadamka iyo sida ilaahay cuntadiisa u diyaariyo waxa uu ku nool yahay noloshiisa ku tiirsanto cuntadiisa ay ku timaadaa ayaa laga hadlayaa sida ilaahay u diyaariyay tabaaraka wa tacaala aakhirka suuradu waxay ku gabagaboobi doontaa oo ka hadlaysaa nolosha dambe aakhiro iyo dadku say u qaybsami doonaan xaaladaasi markay timaado dadku say noqon doonaan iyo meesha lagu kala dambeyn doono ayay suuradu ku gabagaboobi doontaa insha Allah tacaala Allah marka tabaaraka wa tacaala wuxuu leeyahay cabasa nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam uu waji tubay وتولى وانا جيدسدي وجتوبك waxa la yiraahdaa in ruuxu markuu wax qoonsado wajigiisa ayaa ururaya jabhada kore wajigiisa laga garanaya marka taas la yiraahdaa wajitubka la yiraahdaa waa jeedsaday an jaahu inuu u yimid darteed al-a'ma ki indhahala wama yudrika maxaa ku ogeysiinay maxamedow ninka indhahala لعله إنه مديه أما لعله وحو مديه يتزكى إنه إصداهريه أو أما سيذكر إنه وانقاته أو فتنفعه أي أنفعه الذكرى واندو أنفعه أما من روح استغنى ديقتومي أو أن يعني الصبح أركب إنه صنعد أباهنين فأنت أذو له إساقاس أيات تصدى ayaad yaani waxa way u jeedsanaysaa ayaad qaabilaysaa ama u banbaxaysaa wama alayka korkaagana ma ahaanin alla yazakka inuusan isdaahirinin oo uusan iimaanka isku daahirinna adiga kuma saarna adiga mas'uuliyadaada ma aha korkaagana ma ahaanin wa amma man cida jaa'aka ku yimid Muhammadow yas'a asagoo degdegaya oo khayr doona wal xaal huwa isagu yakhsha uu baqayo isagoo baqdini wado khayr doon oo degdegaya haduu ku yimid fa anta adugu anhu xaqiisa ayaa talaha ka mashquulaysa yaani waxa weeyaan waad ka jeesanood waad ka mashquulaysa intaasi hadda aynu akhrinay waa inta aynu niri waxay ku soo degtay qisadaasi ama dhacdadaasi nabigeenu la kulmay sallallahu alayhi wa alihi wasallam sida ay tilmaamayso ummul muuminiina Aisha radiyallahu ta'ala anhuma waxay leedahay suurada cabasa wa tawalla la yiraahdo
waxay ku soo degtay ninka la yiraahdo ibn ummi maktuum wa abdurrahmaan ba abdullahi ba wala yiraahdaa ibn ummi maktuum al-a'ma ee indhaha la abay ku soo degtay beetir seebay ahayd qisadaasi rasuulka ayuu u yimid ninkaasi nin saxaabi ah oo kamid ahaa raggii aadaami jiray waliba salaada subax aadaankeedu adimi jiray nin markii dambana yaani saxaabada waaweyn kamid abu ahaa qiimo badan ku fadhiyay ninkaas nabiga u yimid sallallahu alayhi wasallam markaas wuxuu ya rasuulallah arshidni rasuulka ilaahay oo hanuuni rasuulka ilaahay wixii sheeg wixii barbule rasuulka marka waxa la jooga sallallahu alayhi wasallam nin kamida odayaashii Quraysheed ragii oo bulshadu qadarin jirtay Quraysheed oo gaal ah ayaa marka nabiga la jooga sallallahu alayhi wasallam oo rasuulku wuxuu sheegaya rajana ka qabo inuu bal soo hanuuniyo wax ka yeelo nabigu sallallahu alayhi wasallam in dhoolkiiba ku qayliyay oo yiri ya rasuulallah arshidni u dhawaaqayde rasuulka ilaahay irshaadi rasuulka ilaahay hanuuni waxii cadde waxii sheeg buule rasuulkuna ninkan uu ku mashquulsan yahay markuu inta yiri ayuu rasuulku marka ka jeesaday in dhoolkii ninkii kale uu ku jeesado qaabilay hadalku u socday rajadana uu ka qabay markaas inuu soo jiido oo bal u xaq qaato markaasuu nabigu wuxuu ku leeyahay ninkii isaga ahay odayga ahay gaalka aha atara ma aqulu ba'san hadalka aan ku leeyahay waxaan ku sheegay ma wax dhiba ku jira asaguna uu leeyahay maya inta adii sheegtay hadii arintu taa wax dhiba ma laha markaas aayadahani soo degeen marka nabigu sallallahu alayhi wasallam ijtihaadkiisa iyo dadaalkiisu meel buu ku jeedaa wuxuu rabaa ninkan indhoolka ah ee muslimka ah ee arinkiisa inuu u dambeeyo laakiin bal ninkan gaalka ee odayga rajada uu ka qabo hadii uu soo islaamana uu isleeyahay dad badan buu sabab u noqon karaa in iyaguna soo islaamaan nabigu saasuu istusay sallallahu alayhi wasallam markaasuu isaga isku mashquuliyay kii indhoolka ahaa ee dhawaaqayna nabigu waa ka jeesaday sallallahu alayhi wasallam arintaas marka nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu canaan usluubaysan oo latifan ayuu marka rabbi u jeedinaya tabaaraka wa tacaala rasuulkiisa Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam quraanka marka way ku timaadaa nabigu sallallahu alayhi wasallam mawaaqifta qaarkood in uu arini la qumanaato markaana waxyi cad oo hagaya uu san jirin masalada khaaska ku saabsan uu ijtihaadaya marka nabigu sidana siba la qumanaanayso isleey sidana fiican sidii marka ku tilaabsanaya nabigu sallallahu alayhi wasallam hadii markaasi wuxuga sida uu nabigu damcay wuxuga laga fiican yahay marka waxyi ba marka iimaanayo nabiga toosinaya sallallahu alayhi wasallam oo saxiya tani marka kuwaasay kamid tahay quraanka meelo kale ku timid waxa kamid ah nabigu sallallahu alayhi wasallam munaafiqiintii yaani wax weey ayaa u yimid dagaalkii marka loo socday Tabuk xaaladuna adkayd waxay idan bay weydiisteen oo fasax bay weydiisan fasax bay dhaheen asagoo nabigu sallallahu alayhi wasallam arinta yaani warkiiba fasax buu iska siiyay idan buu siiyay afa Allahu anka lima adinta lahum hatta yatabayyana balayid alla waaba ku cafiye maxaad ugu kaadin weyday oo u idantay balayid waxa kamid ah midalan غنيمه dagaalkii badar waa kuwii nabiga sallallahu alayhi wasallam waa kii dagaalkii badar ku adkaaday Quraysh kaga adkaaday waa in kii maxaabiis fara badan ka soo qabsaday markuu ka soo qabsaday maxaabiistii seel yeela ayaa hadal yaa laga wada hadlay marka isaga iyo asxaabtiisii ragii la taliyaashiisa ah nabiga sallallahu alayhi wasallam marka ninna wuxuu soo jeediyay halalaayo ninna wuxuu soo jeediyay aynu madax furasho ka qaadano nabiga sallallahu alayhi wasallam madax furashadii buu waafaqay madax furasha laga qaatay markaana qaniimada iyo xoolaha gaalada laga furto inay banaantay inaysan banaanayn wax daliila ma yaala marka oo la raaco laakiin way ku ijtihaadeen waa ka marka fi suurati tawba aakhirkeeda ilaahi tabaarak fi suurati al-anfal aakhirkeeda waa ka rabbi tabaarak wa tacaala marka kaga hadlay oo arintaasi nabiga sallallahu alayhi wasallam markaasi iyadana canaantu ku timid way macna ma kana lin-nabiyyi wal-ladina aamanu ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثقن في الأرض سداسوي مركا أسلوب كاسي قرآن كما يلا دورو كيمد هذا مع ذلك مركا النبي يسوع عنانا يا الله تبارك وتعالى عنان وتشيدين يو أما لتوسين يبقى أسلوب كالله الله وأسلوب آد لطيفان واي أسلوب آد أسلوب يسن أو قروح بدن أي الله الله تاسي مركا قصة داسي أي كهل ليس الله تبارك وتعالى مركا وحوليه هي ومرتدى هذا الكؤوية هي ninkan indhoolka khayr doonka ah
ayay ahayd inaad mudnaanta siiso kan deeqtoomay ee gaalka ah ee la kari la'yahay inuusan istaahirin oo iimaan qaadanin adiga kuma wasaarnaba in calayka illa inaad gaadhsiiso bay adiga ahayd haddaad gaadhsiisay intaa ka badan inaad isku dhabar jabisa maba ahaynba kan khayr doonka ee ku doonahaya ee wanaagga soo doontay kanay ahayd inaad mudnaanta siiso hadalku saasuu u dhacaya cabasa marka waa weji tubay nabigu sallallahu alayhi wasallam markuu indhoolkii u yimid isagoo sida u mashquulsan ayuu xoogaa wejigu yani kahashadii baa wejigiisa laga dareemay waa weji tubay nabigu sallallahu alayhi wasallam watawalla waana jeesadayo indhoolkiibuu ka jeesaday an jaa'ahu inuu u yimid darteed buu u jeesaday ama u weji tubay an jaa'ahu inuu u yimid daraaddeed alacmaa kii indhaha la'ah culimmadu waxay yidhaahdaan maxaa magaciisa loo sheegayo kii indhaha la'ah loo yidhi waxay leeyihiin waxaa meeshaa ku jirta isaga laftiisa cudurdaarkiisaa la muujinayaayo haddee inuu nebigoo mashquulsan isaga laftiisu u dhawaaqaayey soo khalad maaha marka waxaa la leeyahy wuuba indhala'aaye in lala joogo nebiga iyo inuu cid la hadlayo iyo indhool buu ahaa marka kelimada alacmaa in la cabiro sifadiisii laga cabiraayey isagaa loo cudurdaaraya macnaha kii indhahalaa inuu u yimi daraaddeed ayuu nebigu u wajitubo u jeesaday wamaa yudriika baabanka le hadalkii baa toos nebiga loogu jeediyey wamaa yudriika maxaa ku ogeysiiyey nebi maxamedow ninkan indhoolkaa xaalkiisa maxaa ku ogeysiiyey lacalahu inuu wuxuu mudan yahay yatazakaa way inuu isdaahiriyo oo sharaa'icda iyo cilmiga iyo waxaad u sheegayso inuu qaato isku daahiriyuu mudan yahay ayib aw amase yadakaru inuu waana qaato ayuu mudan yahay oo fatanfachu markaa ay anfacdo addikra waanadu ay anfacdo wacdiga iyo waanada inuu wax ku qaato mudan yahay marka waa nin doonaya inuu isdaahiriyo oo diyaar ah wacdiga iyo waanada iyo waxaad barayseed u sheegaysana intifaacsanaya marka kan waay kanay ahayd inaad muxuu ahaaye xaalkiisaasi maxaad ka og tahay waay markaad ka jeedsanayso amaa man cidda istaqnaa deeqtoontay yani waxa weeyaan waa gaalkan uu nebigu ku mashquulsan yahay ama gaalo badan badhe odayaashan uu ku mashquulsan yahay ee waxbaba rabinba inay waxay isu arkaanba inay waxaan oo dhan ka deeqtoomaan inaysan u baahnayn bay u arkaan sidaas daraaddeed mid deeqtoomay oon kuuba baahnayn inuu ilaahay u baahan yahayna aan suba arkinba diintaada inuu baahan yahay aan isu arkinba inuu gaadhayba macnaa isku fillaanba gaadhayba mid isu arka amaa man istaqnaa fa anta adugu lahu isaga ayaa tasaddaa ayaad u banbaxaysaa ama ayaad qaabilaysaa kaasaad ku jeedsanaysaa oo qaabilaysaa wamaa calayka korkaaga ma ahaanin ba'sun waay wax baasa korkaaga ma ahaanin wax dhiba kaa soo gaadhi maayo anlaa yazakaa inuusan isdaahirinin hadduusan isdaahirinin oo iimaanka qaadanin oo gaalnimadiisa iyo wasakhda ku dhinto adiga waxba kaa soo gaadhi maayo adiga nebi maxamed sal alla alay wasalam wax kaa soo gaadhaya haba yaraatee ma jirto sababtu maxay tahay in calayka ila albalaaq waay korkaaga inaad gaadhsiisood u sheegto unbaa mas-uuliyaddeedu ku saaran tahay waay waad u sheegtay inaad kaga gaabsatay ahayd ha isku sii dhibin marka ha isku sii taxallujin ha isku dhabar jabin wa amaa man cidda jaa'aka kuu yimid waa indhoolkii yascaa asaga oo degdegaya yani waxa fii dalab alkhayr waay khayrka raadintiisu u degdegaya wanaagdoon waay arrintaasu u degdegaya walxaal huwa isagu yakhshaa uu baqayo baqdin ilaahay baa ku jirta isagoo baqaya yuu haddana degdegaya oo wanaagdoon yahay kaa isaga ah fa anta adugu canhu xaggiisa ayaad talahaa ayaad ka mashquulaysaa yani waxa weeyaan talahaadu bimacnaa tatalahaa waa yani waad ka shuqloomaysaayo kaasaad macnaha waxa way u jeedsanaysaa ku mashquulaysaa kanna waad ka mashquulaysaa waad ka jeedsanaysaa tatashaaqal waay waad iska mashquulinaysaa waay arrintaasi marka intaasi waa inta hore oo waxay ku saabsan tahay qisada indhoolka waxayna tilmaamaysaa mar walba dadka khayrka u diyaarsan ee wanaagga doonaya ee iimaanka doonaya ee diintan raba ayaa mudnaanta leh iyaga mudnaanta la siinaya amaa dad aan uba diyaarsanay oo sii jeeda sax digniinta waa la gaadhsiin laakiin hadday isqabato kanaa mudnaanta leh kan diyaarka ah ee khayrka doonaya ee soo diyaargaroobay ee wanaagga u ordaya kaasaa waqti la siin kaasaa mudnaanta la siin asagaa mudan in la siiyo waay sidaas way darsiga laga qaadanayo qisada iyada
كلا إنها تذكرة كلا كتشوغي أرنتا تشوشي إنها إيضو تذكرة إنها ضميرك وحقون نقوم بإليه سورة دني أما عضدة أما واندة السورة أو العظة إنها سورة دني أما إنها واندني تذكرة ووان يعني وحوي سورة دني ووان ويي وانينيسا dadka dhan bay waaninaysaa waanin waay waa wax sheeg faman ruuxi shaa doona dakarahu wuu xusaa cidii doontaayay way xusi dakarahu yani suurada ama quraankii oo siyaaqa laga fahmayo ayaa loo celinayaa iyo ilaahay aayaadkiisa tabaaraka wa tacaala dakarahu quraankii waa xusaya waa akhrinaya waa ku dadaalaya waa kuwaana qadanaya waa baranaya waa ku dhaqmaya dakarahu quraankii cidii rabtaa qaadan طبعا rabitaankiisa kaliya kuma xidhnee cidii rabtaa allana la rabo wama tashaa'una illa an yasha Allah laakiin marka hore khayrka inuu adoonku qaato uu galo oo intifaacsado waa inay ka timaado dadaal xaqiisa waa inuu diyaar garoobo waa inuu asagu diyaar u yahay waa inuu istaahilo allana tabaaraka wa tacaala markaasi adoon diyaar ah oo istaahila Allah tabaaraka wa tacaala waa u kaalmeynaya waa siinaya muraadkiisa way macna faman shaa dhakarahu fi suhufin mukarrama suuradani ama quraanka oo dhanba leh ayaa marka laga warrami yani wax weeyaan ama suuradan leh ama quraanka oo laga fahmay siyaaqa laga fahmay fi suhufin bu ahaaday waraaqa dhexdood mukarramatin oo la maamuusay oo la karaameeyay ilaahay agtiisa lagu karaameeyay marfuucatin oo la kor yeelay oo laga kor yeelay qadarkeeda la sare yeelay mutahharatin oo la daahiriyay laga daahiriyay wasakhna laga daahiriyay sidoo kale tana siyaada iyo nusqaana laga daahiriyay biaydi safaratin malaa'ig gacmahooda ayay dhexdooda ahaatay biaydi safarada waxa la yiraahdaa waa malaa'igta safiirada ah malaa'igta irgada ah ee ilaahay soo diro ee adoomada iyo alla u dhaxaysa ayaa la yiraahdaa safara saasu macna yani safiiro ama safarada waxa laga wadaa bimaana kataba malaa'ig wax qorta oo qorayaal ah ayay gacmahooda ku jiraan quraanku suxuftan gacmahooda ku jiraan biaydi safaratin malaa'ig wax qorta ama malaa'ig safiiro ilaahay soo dirsaday ayay gacmahooda ku jiraan suxuftaasi kiraamin malaa'igtaasoo wanaagsan oo yani wax weeyaan suusuubano ilaahay agtiisa tabaaraka wa tacaala la karaameeyo sharaf leh bararatin oo baariyaal ah yani wax weeyaan atqiya ah oo ilaahay amarkiisa aan khilaafin la yacsuuna allaha ma amara amar ilaahay ma jabiyaan waa baariyaal way macna malaa'ig noocaas ayay gacmahooda ku jiraan macnaha waxa laga hadlayaa halkan quraanka iyo aayaadka ilaahay sharaftooda laga hadlayaa sida ilaahay u sharfay tabaaraka wa tacaala quraankan iyo suxuftu ku qoran yahay wuxuu rabbi tilmaamay tabaaraka wa tacaala inuu ku qoynay inay yihiin kuwa la karaameeyay suxuf iyo waraaqo sharaf iyo qiimo leh ilaahay agtiisa lagu karaameeyay oo la maamuusay ayay ku yaala quraanku ku yaala la kor yeelayo qadarkeeda iyo sharafkeedu sareeyo la daahiriyay oo wax lama siyaadiyo sidii ilaahay u soo dajiyay waxba laguma siyaadiyo waxna lagama dhibo siyaado iyo nusqaan baa laga daahiriyay waxa kale oo laga daahiriyay waxa la wixii wasakh oo dhan iyo wixii qashin oo dhan waa laga daahiriyay suxuftaasi quraanku ku qoran yahay malaa'ig baa haysa malaa'igtaasi Allah wuxuu ku sifeeyay horta waxbay qoraan way qoraalka yaqaanaan waxa kale oo culimada qaar kood leeyihiin ma aha waa safar bimaana waa safiiro oo muxuu ahaayay waa malaa'igta ilaahay waxyiga ka soo qaada ama ilaahay awaamirtiisa soo qaada adoomada soo gaarsiisa fulisa hawl baa loo soo xilsaaray marka malaa'ig noocaasoo safiiro ah oo la soo dirsado ergooyina ayay gacantooda ku jiraa malaa'igtii baa la siisay hadana malaa'ig sharaf leh oo karaamo leh ilaahay karaameeyay tabaaraka wa tacaala abuurkooduna waa karaamaysan nuur bay ka samaysan malaa'igtu ka abuuran
dabeecadooda iyo dhaqankooda iyo afcaashooduna way karaamaysan tahay oo iyadana sharaf bay leedahay laana wax weeye khalad ma sameeyaan khaladna kama yimaado xumaanna kama soo fushowa bararatin wa baariyaalo ilaahi bay tabaaraka wa tacaala ateecan mana caasiyaan wa atqiya ilaahi tabaaraka wa tacaala malaa'iktu sidaas weeye malaa'iktu sida bini aadamka kala ma aha iyo jinka kala ma aha jinki iyo malaa'ik iyo bini aadamka iyo jinku ilaahi bay caasiyaan mar waa hagaagaan qaar mar ilaahi bay caasiyaan qaarkood ilaahi bay cisyaankiisa ku jiraan qaar muxuu ahay waa hagaagsan ku hagaagsan laftoodu marka qaarkood way yara qaloocanayaan mar bay ka siid calaynaysa laakiin malaa'iktu iyagu mar walba ilaahi bay adeecayaan tabaaraka wa tacaala bararawe kala ka joogi arinta aad samaysay ka joog innaha ayadu suuradani tadkiratun wa waano faman ruuxi shaa doona dakarahu wa xusuusanaya quraanka waa kuwaana qaadanaya fi suhufin buu ahaaday waraaqa dhaxdood mukarramatin oo la karaameeyay oo la maamuuso la sharfay ilaahay agtiisa marfuucatin oo la kor yeelay mutahharatin oo la daahiriyay biaydi safaratin kuwaasoo malaa'ik safira gacmahooda ku sugan ama malaa'ik wax qorta kiraamin malaa'iktaasoo wanaagsan oo sharaf leh bararatin oo baariyaala inta markii laga soo gudbay quraankii iyo suuradan iyo ilaahay aayaadkiisa qiimaha inta leeg loo yeelay kadib baa waxa halkan laga guda galay marka qutila al-insanu ma akfarahu bini aadamka sida ilaahay uu tabaaraka wa tacaala ugu nicmeeyay iyo nicmada ilaahay sidoo ugu jisaarayo sid abaal xumadiisa sida uu ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ugu nimceeyay laga bilaabo abuuristiisa ilaa quudintiisa gacan ku hayntiisa nicamkan ilaahay siiyo tabaaraka wa tacaala iyo hadana dhaqan xumadiisa ayaa laga hadlaya halkaas laga bilaabo الإمام محوها ابن كثير وحليه هي ملائكة صحفة القرآن كحنبارسا ما دام أي براريهن كرامة الشرف له روح القرآن كحنبارسا نوحى للدنيا إنه صاصو كلا نقضى باري هدنا تقيه قرآن ككو عمل فلاح لكن النبي صلى الله عليه وسلم روح القرآن كيقان ماهر كأه السفي عن قرآن كأو يقانا ملائكة برارده كرامته وناكسن بولا جيران كوديه روح قرآن ك يعني أخرنا لكن كفيا يعني وحويان يعني كرفات سنة لما أجير بوليه النبي صلى الله عليه وسلم مرك قرآن كهدي إلهي كبري وإن دقن كيسي يوناجيس لجاه لوا قتل ولا لعنة الإنسان إنسان كي ولا لعنة إنسان كان لجاه الله يو وإنسان كإنكرسن إسسو صارده isa soo saaridii iyo in la soo saari doono la abaal marin doono la xisaabtami doono yu inkirsan yahay wixii ba marka wax weeyaan adilla loo sameeynaya qutila wala la'nadi al insanu insanki ma shay ajabadan ayaa akfarahu gaalnimo badnaysiiyay shay la yaable ayaa kaafir ka dhigay macna maadaasi taajubna wala dhigi kara istifhaamina wala dhigi kara ama ma maxayba akfarahu gaal ka dhigay قال كيال من أي شيء حقيسة أيو خلقه الله كأبوري شيء كيسيبا خلقه الله وإسقى كأبوري بل شيء قال لقى أبوري وكسو كذا أسل كيسة أوفير سوا ولقيت شو أبو حليل من نطفة عن طوف منيئة حق هذا أيو خلقه الله كأبوري خلقه من نطفة فقدره مركاسو الله قدري وكان قوي حلقة وذا قدره وشرح دونه ثم مركا كدب مركو قدري ولا اسكوها قاتشي ولا تشانغوي السبيل تشيتكي أيو يسره أفضدي ثم مركا كدبنا أماته ودلي وغيري دي سيبا كتمت فأقبره قبر أيو أيالي لولك كوركي سلقمت تجيني حدنا ولا كرامي هدور دنتيو لولك هوستي سالغو أسطوري ثم مركا كدب إذا قرت شاء أودونا الله أنشره وصوصاري مركو دوننا ووقت جيسي لقارنا ماشي لغو آسيا لقليبا ديب لوغا سوعلينيا وديب الله صونولينيا كلا هكاتشوغي كلا هكاتشوغو حمان تهجوشيو أما كلا أرنكو سامعه سيد ابن جرير أوليه ليس الأمر كما يقول الكافر من أداء حق الله أرنكو معها
sida uu gaalku sheeganayo oo xaqi ilaahay inuu gutay arrinku ma aha kalla sama ama kalla ka joogi lamma yaqdi muusan gudanin insaankii ma shaygi amarahu alla uu amray isagoo la abuuray oo wanaagaas oo loo sameeyay haddana amarkii ilaahay muusan gudanin waajibaadkii faraa'idii la saaray iyo xaqi ilaahay muusan gudanin falyanzur al-insanu mimma khuliq falyanzur al-insanu ila ta'ami inta marka waxa laga hadlay bini aadamkan madaxa adag ee ilaahiisa isku taagaya ee khaaliqii abuurtay inkiraya ee xaqi ilaahay soo dejiyay la dagaalamaya ee wixii loo sheegay iyo waxyigii rasuushii loo soo diray cagta ku dhufanaya ku gacan saydaya ibni aadamkan bal sidiisaba habaarka qaba bal meeshuu ka soo jeediyo wuxuu yahay soo isweydiin ma mudna haddii la fiiriyo dib loo fiirsado meeshuu ka soo jeedo iyo waxa uu ku dhaqmayaay isma laha waa yani nicmadiid iyo gaalnimo iyo kufri iyo madaxadayg iyo juxuud waa maxaa keenaya waa bal maxaa laga abuuray ha u fiirsado min ayi shayin khalaqahu muxuu ilaahay ka abuuray haddii dib loo fiiriyo dhibic mani ah ayuu ilaahay ka abuuray yani wax weeyaan manida ragga ka timaada marka kadibna ukunta hooyada la falgalaysa halkaasuu ka abuurmaya waliba dhibicdoo dhan meehee dhibicdaasa wax yar laga siibayaa xayawaanka minawiga ah ee bini aadamka yani waxa weeye abuurkiisa sababta u ah aabbaha ka imaanaya kadibna la falgalaya ukunta hooyo la falgalaya taasaa laga abuuray shayga laga abuuray marka waa shay liita min maa'in mahiin waa biyo liita oo muxuu ahaayey jilicsan oo aan qiimo lahayn oo marada markay kaga gaadhaan aad iska dhaqayso oo jirkaaga aad anu ogolayn oo wasakh ah waxaasaa laga abuuray markii la abuuray kadibna faqadarahu ilaahay baa qadaray qadaridaasi laba macnaba waa laga dhigi karayaa in la yiraahdo alla tabaaraka wa tacaala wuu jaangooyay wuxuuna u diyaariyay wixii uu munaasib ku ahaa iyo maslaxadiisi oo waxay la mid noqonaysaa yani wa khalaqa kull shay'in faqadarahu taqdiran oo kale la mid noqonaysa ama sida ibn kathiir uu leeyahay waxay noqonaysaa faqadarahu alla wuu qadarayo wuxuu qadaray markii la abuuray isagoo uurka hooyadii ku jira xadiis baana ku tusaye ayaa waxa la qadaray oo la qoondeeyay ajashiisa cimrigiisu intuu noqonayo rizqu cuni lahaa amalkiisa wuxuu sameyn lahaa inuu ahlu naar yahay inuu ahlu janno yahay waa la qoondeeyo waa la qorsheeyay faqadarahu wax walbo isaga ku saabsanna waa la qadaray waa la jaangooyay waa qadaran yihiin halkaas ilaahay dhigay tabaaraka wa tacaala wax qorshaysan waa markii kadibna caloosha hooyiye uurka hooyiye makaanka markuu muddadii ku qaatay wax walbo isaga ku saabsan la qadaray oo la qoro la qoondeeyay marka kadib ayaa Allah tabaaraka wa tacaala hadana wuxuu u fududeeyay jidkiibu u fududeeyay laba tafsiir baa jira mid wuxuu leeyahay waxa laga wadaa jidku hooye kaga soo bixi lahaaba ilaahay u fududeeyay ficilana macnahaasi waa macna sax maxaa yeelay ilmuhu markuu uurka hooye ka soo baxayo meesha uu soo marayo waa meel xiriiri ah ilmo 3 kiilo ah 4 kiilo ah 2 kiilo badh ah ayaa meesha xiriiriga soo maraya haddaan ilaahay fududayninna ma soo mari karo haddii adduunka khubaradiisu isu tagaan ma soo marin karaan haddaan ilaahay fududaynin tabaaraka wa tacaala thumma sabiila yassara jidku hooye kaga soo baxay baa haddana loo fududeeyay waa macnawi in la fududeeyo waxaad ku garanaysaa shayga sidiisaba meeshuu hal mar soo maray waa lagu celin karaa haddii hadda la yiraahdo ilmaha hooye ka soo baxay mar labaad dib ha loogu celiyo lagu celin karayo marka taysiir rabbi baa ku jira jidkii baa la fududeeyay macna waa macnahaas waay macnaha labaadi wax weeye in la yiraahdo summa sabiila yassarahu jidku mari lahaa ayaa loo fududeeyay oo khayrkii iyo sharkii labadii jid midku qaadi lahaa ayaa loo cadeeyo loo fududeeyay macnahana waa mido waxay noqonaysaa marka inna hadaynaahu sabiila ila macnata jidkii baan u cadeynay labada jid ama kan qaad ama kan qaad tayib thumma marka kadibna amaatahu alla dilay maxaa laga wadaa markuu dhimanayo waqtigiisu dhamaado amar xagga ilaahay kan yid buu ku dhimanaya nafina waqtigeeda ka hormari mayso
طيب harku had dhintay markuu dhintay hadana lama tuurin oo banaanka laguma tuurine Allah tabaaraka wa taala qabri buu u yeelay waa karaameyn kale waa yani bini aadamka kiisa gaalka iyo kiisa muslimka toona dhulka korkiisa lagaga tagi maayo markuu dhinto hatta gaalada hadii iyagu is-aasi waayeen oo gaalkan wax aasan la waayo oo gaaladiisii iyo qaraabadiisii waxa aasay muslimiintu inay aasaan waa in yani dhulka la geliyo qabri buu ilaahay u sameeyay waa karaameyn kale waa markii uu muddo ku jiro maqnaado qabriga ku jiro waqtigii loogu talagalayna la gaadhana thumma idha shaa ansharahu markuu doono alla dib u soo celino uu soo nooleyn su'aashu marka waxay tahay war Allah halka ka soo bilaabay ee sida uu abuuray ee inta soo mariyay inuu mar laba dib u soo celiyo maxay ku tahay wax culus ba sidaas way macna ibn aadamka inta loo sameeyay kalla lamma yaqdi muusan gudanin ma amarahu wuxuu ilaahay amray waxay ahayd inta hadii loo sameeyay ya abaalku wuxuu ahaa inuu abaal gudo abaalku waxa weeye inuu rabbigi ateeco inuu aqoonsado waa la abuuray halkaas la soo mariyay inta soo marxala la soo mariyay gacanta la igu hayay ilaahay baa ii fududeeyay ilaahiisa inuu aqoonsado laakiin kadibna uu amarka ilaahay sharcigiisa fuliyo maya waa ka madax taagay kalla lama yaqdi ma amarahu amarka ilaahay ma uusan gudanin halka culimada qaar waxay leeyihiin hadii insaanka oo dhan laga dhigo gaalka kaliya aan laga dhigin waxay noqonaysaa muslimka laftiisa amarkii ilaahay siiyo dhan ma wada fulinin bini aadam baa leeyahayo mar walba galab iyo wax ka khaldama la waay maayo inta kadib Allah tabaaraka wa taala mar kale waxa la yiri bal hafiiriyo bini aadamkani cuntadiisu say ku timaado falyandur hafiiriyo al insanu insanki ila ta'amihi cuntadiisi quudkiisa bal hafiiriyo see ku yimaada annagu hafiiriyo sababna inaan soo shubna inaan shubnay almaa bihi sabban shubid bihi inaan samada ka soo shubnay bal hafiiriyo haw fiirsado waa thumma markan bihi soo shubnay kadibna shaqaqna waan jeexnay al arda dhulkii baan jeexnay shaqan jeexid bihi dhulkay galeen abuurkii dhulka ku jiray iyo wixii dhulka hoostiisa ku jiray bay gaadheen kadibna wixii dhulka ku jiray baa soo baxay caradii baa kala dildilaacday si ay u soo baxaan doogan iyo dalagan uga soo baxo dhulkii baa la baneeyo la dildilaaciyay wayla wax weeye waxaan soo baxayay dhulka ma jeexi karo isagu geed yar oo jilicsan oo curdun ah oo markaasi muxuu ahaayay dhulka hoostiisa ka soo baxayay caradaad adagtay inuu isagu kala jeexo madaxa la soo baxo suurtagal ma ah laana waxa ma awoodi karaba laakiin jeex rabbi baa ku jira thumma shaqaqna al-ardha shaqan dhulkii baan dildilaacinoon jeexnay si ay uga soo baxaan yani dalagii iyo doogii iyo geedii wixii ka soo bixi lahaa fa anbatna markaasan soo saarnay fiiha dhulka dhexdiisa waxaan ka soo saarnay habban waa badarka waa raashinka cuntada asaasiga la cuno waa bariiska iyo wuxuu ahaay qamantida iyo masagada iyo yaryareyda iyo badarka waa habbantu wa cinaban baan ku soo saarnay iyo cinab waa canabka waa wa qadban iyo yani nabaadka isaga oo qoyan oo curdanka ah la cuno waxa loo badan yahay inuu yahay xooluhu waxay cunaan waxa la yiraahdaa geed waxay ku fasiraan leeyahay alfisfisa oo xooluhu cunaan waa yani geed curdan ah oo jilicsan oo nabaad ah oo dhulka ka soo baxa waana la beeraa hadda looda la daajiya xooluhuna waa daaqaan loodu markay daaqdana aad bay u darartaa yani wax weeye birsimna waa la yiraahdaa albirsim alhijazi iyo uu kala baxa marka geed noocaas waay marka xoolaha daaqa waa daaqa xoolaha waa raay kale wuxuu leeyahay mufasiriinta qaarkood ma wax kasta oo isagoo qoyan la cuno ama bini aadamku ha cuno ama xooluhu ha cunane baa la yiraahdaa yani wax way qadbiga la yiraahdo oo markaasi kabajki waxay qoyaanka lagu cunay ayaa soo galay wa zaytunan zaytun baan ku soo saarnay zaytunku waa yani idaamkii waa zaytunku ma aha kan zaytunka anaga noo qanaan kan anaga aan zaytunka jawaafa la yiraahdaa zaytunku waa kan saliida laga miiro oo inta badan Shaam ka baxo iyo Spain iyo dhulka ka baxa yani wax Andalus ka baxa kaas la yiraahdaa marka isaga waxa meesha loo keenay idaamna wuu noqdaayo waa saliid heed raashinka lagu idaantaa waliba barakaysan dhanka kalena waa lagu subkadaa طيب ونخلا بان ku soo saarnay ونخلنا waan soo saarnay dhulka dhexdiisii nakhlan biyihii soo dagay waxaan ku soo saarnay geeda timira
وحدائق إيا أسندوين بيرواوين غلبا أو كولنسان يعني وحوي واوين أما يعني وحوي اللامه هودو أيس قلين غلبك وحلي هذا يعني نينك تونك وين روح التونك وين يعني قرباه أنت وحيس آدو وين باغلي هذا غلبك اللي أصل كذا وحنا لقوا جيدوه مركي آدو واويهين جردوا وين تهي أذجيهين أيجو هذانا كل ما نو إصلاح قلان أي اللي هذا وحدائق غلبا وأسندوين جيدوه دو واويهين وليبا أي كرء بحين ويهدنا إصلاح قلان وفاكهة بنصو صارني فاكهة دي ووحيالها مدها لقو فاكهيستو قدارتا يعني وحوي عنتد أساسي معه لكن ولقو فاكهيستا ساسوي معنا وأبا بنكسو صارني داق أبيغنا إساغنا داق بالو بدن إنو يحولوه أي عنان intaasaan iyadana ku soo saarnay abigaasi xadii waxa sugan athar Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu ardaa inuu suurada akhriyay markuu soo gaaray halka ayaa wuxuu yiri qad arafna al-faakihata famal abu faakihada garanay abigani muxuu ahaa buu yiri waa Umar baa isweydiinay markaas wuxuu yiri la'amruka ibn al-Khattab in hada lahu takalluf isagii hadana isu jawaab wuxuu yiri adiga hadaabad garatayba inuu yahay nabaad ilaahay soo saaray inta ba hadaad ka fahantay wixii inta ka dambeeyay noocu yahay inaad si tafaasiil si raadiso aba takalluf buu waxa ku diray adiga maqsuudka fahantay way macna maqsuudku waxa weeye waxyaalaha ilaahay soo saaro adoomadiisa ku galadaysanayo inay ka mid tahay fahantay inta kadib inaad si aad takalluf weeyaan buu saas way macna adiga abigaasi inuu daaq yahay sidaas ay ku fasiraan culimada qaar kood intaas waxaan u sameeynay buu alayri mataacan raaxayn lakum idinka la idin raaxaynayo iyo wali an'aamikum xoolihiin idinka la idin raaxayn qaar idinka cunaya qaarna xoolihiina daqataan baa cunaya idinkay raaxa idin tahay marka oo la idinku nimcayn idinku barwaaqaynay tanna waxay marka la daliil u tahay Allah tabaaraka wa ta'ala intuu biyaha kor ka keenay dhulka daaqa ka soo saaray dalag ee dhulkii oo meeyda nooleeyay waxay u fududahay oo aan ku adkayn inuu idinkana marka dhimataan kadib dhulka idinka soo nooleeyo idin soo saaro tayib inta markii laga baxay kadib baa waxa la guda galay qiyaamada iyo dadku say noqon doonaan iyo sida loo qaybsami doono in laga hadlo fayda goorti jaad ay timaado as-saakhatu ti yani wax way qayladeedu wax dhaga tirays saakhada wax la yiraahdo midii wax maqashiinaysayna waa la yiraahdo midii qayladeedu ay darnayde dadka dhaga tiraysayna waa la yiraahdo waa afuufista buunka la afuufayo ama qiyaamadana waa la yiraahdo labada waa lagu fasiraa markay timaado yawma maalin ay timaado yafiru cararayo almar'u ruuhu min akhihi walaalkiibu ka carari wa ummi hooyadiibu ka carari wa abihi iyo aabihi wa saahibati iyo xaaskiisa wa banihi iyo wiilashiisa likulli imri'in ruux kasta waxa u sugnaaday oo minhum iyaga kamida yawma idin maalinka sha'nun arrin baa u sugnaaday oo yughnihi ku filan kaga filan wax kale oo dhan tayib maalinka markay timaado wala kala cararaya lababa waa loo kala cararaya ruuxul batiisa haysata tu kalena kan shabo uma hayo waa mid labaade dadkii eheladiisa aha wuxuu uga cararaya ama wax ku qabsadaan laana maalinkaasi ruuxu wax ka dhacsan kara ama wax ka daadsan kara waa ku tacalluqaya saas daradeed kii aad taqaanay iyo ehelkaagi iyo kulli waxaad ka cararay ama wax ku qabsadaan dhanka kale weeye waxaad uga cararaysaa taadaaba ku saaqatayba taada ka siid calisto taada ku haysata sidaas way macna sida loo dhigay waxa la hormariyay walaalkii waxa lagu xijiyay hooyadii waxa lagu xijiyay aabihii waxa lagu xijiyay xaaskii waxa lagu xijiyay caruurtii waxay leeyihiin culimadu tartiibkaasi loo kala hormariyay waxay ku tusaysaa bini aadamku suu u kala jecel yahay waxa dii lagu yiraahdo walaalkii buu ka cararay bimaana waxa dhici karta inaad walaalka ka cararto laakiin aadan ilmahaaga ka cararin طيب marka walaalkii baad ka carartay laakiin waxa la isweydiinaya طيب hooyadii ma ka cararay markaas la yiri hooyadiina uu ka cararay hooyadii haduu ka cararay wali waxa tagan mid hooyadii ka cararin aaba ka cararin ba jiree aabana ma ka cararay waxa la yiri aabiina uu ka cararay kuwa kasi hooseeya jira marka oo kaasi xiga oo iyaga lagu nafbaxo kuwii baa hadana la keeno waxa la yiri xaaskiisiina ka carar waxaan marba rag baa saxaska ka carar laakiin caruurtaan ka cararin caruurtii baa la yiri hadana caruurtii ba ka carar meeshaasi wax weey naftaada la baxsan sida la isu daba dhigay bimaana waxay ku tusaysaa bay leeyihiin bimaana say
يعني أكل فوقايين بالو يا لوكال هرمري لأن روح سويدينيا مربى مد مقدم تدني بالو سوى معنا سيدا سويا ما حصل الله يلي ما الله كلا عرّي الروح البتيسا كفلا حديث باميشا كسوغان عائشة رضي الله تعالى عنها النبي مركو صلى الله عليه وسلم دتك مالنت قيامada la soo kulmin doona ayagoo qaaqaawan oo kabala oo aradan oo muxuu ahaay buuriye qab ah ayaa la soo kulmin doona oo la isu keeni doona markaas ay tiri muxuu rasuulka ilaahay soo lees daawan maayo yaa soo rag iyo dumarku istaawan wala la qaaqaawan yahay markaas uu nabiga sallallahu alayhi wasallam Aisha arintu inta waa ka daran tahay ruux walba maalinka tiisa haysata ruux kan shaqo haya inuu dad qaaqaawan daawado waa ladnaan Soomaa markaad ladan tahay baad wax fiirfiirisaa wax daawata laakiin markii adiga lagu soo dhigto rabbi sallim orad baad geliya car ishaadu waxa uma qabanaysaa marka isdaawasha maalinka ma joogto way macna likulli imri'in ruux kasta waxa u sugnaaday oo minhum iyaga kamid ah yawmaydin maalinka sha'ni arrin baa u sugnaaday yuqnihi oo ku filan oo kaga filan ama ka deeqaya wixii kale oo dhan kaga filan laba loo kala baxaya marka waa meeshii ugu dambeysay la tagay wujuhun wajiyal marka yawma idin maalinka musfiratun waa mid iftiimaysa waa daahikatun oo qoslaysa mustabshiratun oo bishaaraysanaysa waa wajiyadii dadkii wanaagsana muuminiintii saalixiinta ah wajiyadoodu maalinkaasi way iftiimayaan inay iftiimaana waxa keenaya qalbigoodii ayaa faraxsan faraxa qalbigooda ku jira ayaa wajiga ka muuqanaya wajiga baa iftiimay way qoslaysa daahikatun waxa horteeda yaaliya barwaaqada ilaahay siiyay naxariista iyo jannadan iyo waxanay ku qoslaysa mustabshiratun way bishaaraysanaysa oo yaani bishaarada qalbiga ku jirta ayaa wajigana ka muuqata oo wujuhun wajiyalla yawmeed waa gaaladii iyo munaafiqiintii intii la halmaash oo wujuhun wajiyalla yawmeedin maalinka عليها كركيدا waxa ahaatay qabaratun siigo iyo bus iyo siiga qarisay tarhaquha waxa daboolaysa qataratun mugdi iyo madow waa foolxumo meeshii ugu dambeysay bay yiraahdaan wajiga intay carra iyo bus ka fuush haddana in mugdi iyo madow la sii saaro labadaas la isugu daraya yeeyihiin ulaaika kuwaasi hum iyagu al-kafaratu wa kuwi gaaloobay gaaladii waay al-fajaratu fajiriinta al-kafaratu waxileeyeen waa qulubtooda kufriday al-fajaraduna waxway acmaashooda ayaa fujuur ahayd qalbigooduna gaalay ka hayeen qalbiga xubnahana macaasi iyo dunuub iyo xumaan bay la yimaadeen marka al-kafaratu fi qulub al-kafaratu qulubuhum wa al-fajaratu fi a'malihim sidaas marka lagu gabagabeeyay labada mid baa la noqon doona natiijada aakhirana sidaas weeye bini aadamkan ilaahay tabaaraka wa taala abuurayna abaal ka abaal dhacaya ilaahay tabaaraka wa taala bedelkii inuu ku shukriyo nicamkiisa ku aqoonsado loo baahna la kari la yahayna asagana halkaas u dambeyn doonta hada billahi tawfiq wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam بسم الله الرحمن الرحيم شيخ إلهي سبحانه وتعالى أجر أن نسوكو بكر إلهي سبحانه وتعالى كسيو شيخ waxaa jira dhowr su'aalo oo dadka ku xiran page-ka masjidka sigiska ay ku soo qoreen su'aasha koobaad waxay leedahay waxa iga wareersan dabcan waa gabar waxay leedahay waxa iga wareersan caadadii oo labadii ama saddexdii maalinba way iga timaadaa dhiig furana ma aha oo waa caadadii waan aqaanaa sheekhow sidaan u soomaa bismillaahir rahmaanir rahiim haddii aad hubto inay caadadii tahay intay caadadaasi jirto mana soomi kartid mana salaadi kartid ninkaaguna kuma banaana caadadu sax way wareertaa inay wareertana inta badan waxaa keena waxyaalaha ay isticmaalaan dumarku oo u badan waxyaalahan ama dhalmada lagu kala fogeeyo ama dhalmada lagu gooyo waxyaalahaas inta badan keena inay caadadu wareerto almuhim haddaad hubto inay tahay caadadii oo wareersan oo ku haysa intay ku hayso mana soomi kartid mana salaadi kartid ninkaaguna kuma banaana sidii adoo caado qabo oo kalaata wallahu a'lam jazakallahu khayran saailkan kale wuxuu leeyahay sheekh anoo sooman madaxa ma iska toobi karaa masalada toobinka waa masalo khilaaf ku jiro fuqahaada dhexdooda
soonka ma jabiyaa mise ma jabiyo waxaa la mida dhiig badan in jidhka laga saaro xadiid baa nebigu sal alla alay wasalam sugan uu leeyahay nebigu wuxuu soo maray laba ninoo istoobaya kadibna wuxuu yidhi aftara alxaajimu waalmaxjuum kan toobaya iyo kala toobayaba waa afuray soonkii waa ka jabay xadiidkaasi fuqaha badan baa ku tegey oo inuu toobinku soonka jabinayo xadiid kalaa jira oo anas warinayo oo uu leeyahay arrintaas oo inuu toobinku soonka jabinaya waxaa ka dambeysay nebigoo sal alla alay wasalam ruqseeyey oo ogolaaday dadka sooman inay istoobi karaan xadiid kalaa jira bukhaariga ku yaallo nebigu uu leeyahay nebigu sal alla alay wasalam saxaabigu uu leeyahay nebigu wuu istoobay isagoo sooman warka marka lasoo ururiyo wuxuu noqonayaa mas'alada toobinka iyo dhiig in la iska saaro inay soonka jabisaa waa laga dambeeyey oo waxaa ka dambeeyey in la ruqseeyey oo la idmay sidaas daraaddeed soonka ma jabinayo toobinka iyo dhiig jidhka ka baxay toona sidaasaa ila xoog badan waase masale khilaafiya wallahu aclam jazaaka allahu khayran sheekh saa'ilkan kale wuxuu leeyahay waxaan ka boogoobay afka oo nabara iga soo baxay dhakhtarkiibaa wuxuu ii soo qoray dawada lagu luqluqdo marka anoo sooman ma isticmaali karaa dawada haddii ay tahay uun luqluqasho kadibna aad iska tufayso dhib ma laha waxaad ku dadaalayay inaysan hoos u gudbin oodan liqin leanno afka waxyaalaha soonka jabiya hadduu afka galo oo ka soo noqdo soonka ma jabinayo waa luqluqashada biyaha oo kale markaan weysiisanayna waa luqluqanaynaa biyuhu weysada way jabiyaan maalan cunto intaad dhadhamisay aad tijaabisay oo kale aad iska tuftay shay maalan afkaaga galood soo tuftay soonka ma jabinayo marka hadday tahay mujarad luqluqasho kadibna aad soo tuftay hoosna aan u gudbin oodan liqin soonkaagu waxba ma noqonay waad samayn kartaa wallahu aclam jazaaka allahu khayran saa'ilkan kale wuxuu leeyahay waa gabar baa soo qorta waxay leedahay aabbahay in badan ma soomin mana salaadin wax cudurdaar ahna ma lahan marka sheekhow ma ii sheegi kartaa qaab aan ugu gudbin kara soonka iyo salaada maxaa yeelay kurbo ayuu igu hayaa hal waaniyo ha loo naseexeeyo hidaayada ilaahay baa haya ruuxaan salaad tukanaynin oo aan soomaynin muslim ma aha salaada keliya tegitaankeeda nebigu ku tilmaamay inay gaalnimo tahay soonkiina haddana hadduu ku daray uusan soomaynin ruuxaasi muslim ma aha laakiin waxaa waajiba in loo naseexeeyo oo la waaniyo oo si alla sidii wax loogu sheegi karo wax loogu sheego lagu dadaalo ilaahay baa hidaayada iyo hanuunka haya laakiin waxaa dhici karta in ilaahay soo hanuuniyo hidaayada ilaah baa haya yani hadal dabacsan oo aan adkayn oo muxuu ahay sasab ku jiro oo xikmadaysan mar walba waxa loogu gudbiyo maxaa yeelay ilaahay tabaaraka watacaala fircoon oon ogeyn inuu ilaahnimo sheegtay ana rabbukum alaclaa yidhi ayaa ilaahay tabaaraka watacaala markuu muuse iyo haaruun dirayay calayhim aw calaa nabiyina asalaatu wasalaam markuu u diray wuxuu ku yidhi faquulaa lahu qawlan layinan lacalahu yatadakaru faquulaa lahu qawlan layinan yani hadal dabacsan ku dhaha inuu waana qaataa dhici karta ilaahay waa ogyahay inuusan waana qaadanin fircoon oo gaalnimo ku dhiman doono laakiin rajagelin baa meeshaa ku jirta ruuxa sidiisa marka lagama quusto si kastoo uu dembi badan yahay si kastoo uu khariban yahay ruuxa inta uu nool yahay waa suurtagal in ilaahay hanuuniyo marka ku dadaala uun insha allahu tacaala nacam sheekh ilaahay ha ku barakeeyo saa'ilkan kale wuxuu leeyahay sheekhana af carabiga ma garanayo ilaahayna inaan u dan sheegtaan rabaa af soomaali ilaahay ma ugu dan sheegan karaa anoo sujuudsan ma ku ducaysan karaa masaladaasi marar badan bay soo noqnoqotay af aan carabi ahayn salaada dhexeeda ma lagu ducaysan karaa horaan waxaa ila xog badnayd inaysan runtii waxaan luqa carabi ahayn salaada gudaheeda aan lagu ducaysan karin gadaal dambe baxti dheeraadan sameeyey masalada khilaaf baa ku jira saddex ra'yi baa la isugu khilaafsan yahay qole waxay leeyihiin sideedaba ma dhici karto in luqad aan carabi ahayn salaada dhexeeda duco ama si kaleeta ay usoo gasho ra'yina wuxuu leeyahay maya xataa hadduu carabiga yaqaano wuu ku ducaysan karaa luqooyinka kale ra'yina wuxuu leeyahay maya haddii uusan ruuxu uusan garanaynin
carabigii uu xaajadiisa ilaahay ugu bandhigan lahaa salaada dhexdeedana khaasatan markuu sujuudsan yahay wa aqrabu maa yakuunu alcabdu ilaa rabbihi yani waqtiga rabbigii ugu dhow yahay way ducadana ugu dhowdahay in la aqbalo faqaminun an yustajaab waa xilligay ugu dhow yahay in ilaahay ka aqbalo marka halkaasuu rabaa inuu baahidiisa iyo duruuftiisa ilaahay u sheegto oo baryo luqadii carabiga ahayd ee ku saaciidayn lahaydna ma garanayo waxay leeyihiin xaaladaas iyada oo kale culimadu waxay leeyihiin waa loo ogolyahay markaa inuu luqad kale oo aan miduu garanayo oo aan carabi ahayn inuu ku ducaysto ra'yigaas baa marka dhexdhexaad ah qolada wada diidan iyo qolada wada ogol iyo qolada cidda uun aan carabiga garanaynin u ogolaanaysaa saddexaasaa laysugu khilaafsan yahay tana marka dhexdhexaada laanna waxaa jirta ruuxu markuu wixii laasimka ahaa waayo marar badan bay shareecadu waxay u ogolaanaysaa wax kale ay siinaysaa xataa waxay leeyihiin waa ka nebigu sal lla lay slam ruuxu markuu faatixada uusan aqoonin yani adkaar kale loogu bedelo ilaa faatixada uu ka baranayo laakiin waxaan dhihi lahaa maadaama hadalba galay way fududdahay in ducooyinka carabiga la bartay jawaamicda ha lagu dadaalaan dhihi lahaa insha allahu tacala iyaga hala barto wallahu aclam jazaaka allahu khayran saa-ilkan kale wuxuu leeyahay sheekh awal masaajidii ayaan taraawiixda u aadi jirnay masaajidiina waa la xiray laakiin xaaskayga ayaa qur-aanka xifdisan iyada ma i tujin kartaa hadday maya tahay aniga inay i tujiso caruurta ay dhashay oo wiilal ay ku jiraan miyay tujin kartaa xadiis baa jira abu daawuud iyo keyrka ay warin ahlu sunanka xadiid umu waraqa waa xadiid sugan umu waraqa gabadh waxay ahayd saxaabiyaadkii hore oo qur-aanka baratay ninkeeda iyo caruurteeda iyana maysan aqoonin qur-aanka qadarkii la rabay ama marka nebigu wuxuu ku yidhi sal wuxuu u ogolaaday ama u idmay in ay ehelkeeda guriga inay tujiso maadaama iyadu qur-aanka ay taqaano halkaasay fuqahada qaarkood ka qaadanayaan haddii ay maamada gurigu qur-aanka taqaano ninka iyo caruurtuna aysan aqoonin in ay tujin karayso oo xadiiskaas umu waraqa ee sunanka ay sunanku wariyeen oo xadiis saxiixa ah ayay u daliishanayaan culimada qaar ka mid ah laakiin waxaan dhihi lahaa haddii xataa qur-aanka wax uga bilaaban yihiin oo qur-aanka uu sixi karayo misxafka si fiican uga akhrin karayo hadda way fududdahay yani waxa weye mobaylkayba qur-aan ku jira ha ka tukado isagu ha tujiyo yani waxa weye misxafkana qur-aanka ha ka akhriyo hadduusan ka akhrin karaynin oo caruurtiisa ay jiraan kuwo qur-aanka yaqaana iyagu ha tujiyeen hadday intaa midna jirin maamadu ha tujiso laanna isaga qur-aankii ma uu garanayo qaar ahaan hadday salaadu salaad tahay salaad ama taraawiix ama salaad sunna tahay kuma sii jirto wallahu aclam jazaaka allahu khayran khayr aljaza saa-ilkan kale wuxuu leeyahay sheekhana salaada witirka in 3 ragco la isku xiro oo nitaxyaad loo dhexaysiinin iyo in la kala jaro labaduba miyay soo aroortay midna ma laazimi karaa ama inaan 3daba isku xiro ama aan kala jaro hal xabo ma laazimi karaa labaduba horta way bannaan tahay witirka inaad hal ragcada gooni ka dhigto waad heli kartaa 3 isku xidhan inaad ka dhigto waad heli kartaa 5 isku xidhan aad ka dhigto waad heli kartaa 7 isku xidhan waad ka dhigi kartaa 9 isku xidhan waad ka dhigi kartaa kulli dalika nabiga ka sugan tahay sallallahu alayhi wasallam haddii aad kala goysood ka dhigto 2 ragcadood oo gooniya iyo hal ragcado gooniya waa sida fadliga badan oo dee camal ziyaada baa ku jira taxiyaad ziyaada waxbay wadataa haddaad isku xidhana nabiga ka sugan tahay sallallahu alayhi wasallam laakiin taxiyaad dhexda ma gelinaysa maqribka ugu ekaanin marka way banaantahay kulli haddaad mid ka mida ku gaabsato waad heli kartaa laakiin sida fiican haddaabad wada garanayso sunnooyinka noocaasa ee nebiga ka soo arooray ee khiyaarka ah waxaa fiican inaad kolba mid qaadato si aad sunnooyinkii ugu wada dhaqanto mar muxuu ahaayey xidhiidhi mar kale goo si alla sidii muxuu ahaayey si aad sunnadii nebiga sal lla lay slam kulli aad ugu wada dhaqanto ajirkeedana u wada hesho saasaa fiican laakiin hal midun haddaad qabsato taa uun ku dhegtana dhib ma lah waa la ogolyahay macnaha nacam jazaaka allahu khayran sheekh saa-ilkan kale wuxuu leeyahay xadiid nebi ayaa wuxuu ahaa ruuxii safka salaada gooyo ilaahay ha gooyo ruuxii xiriiriyana ilaahay ha xiriiriyo haddeer masaajidda kuwooda lagu tukado ama meelaha qaar aan ku tukanno dadkii way kala durkaan oo iskuma soo dhowaadaan markasoo lagama yaabo inaan xadiidkaas habaarkiis uu nagu dhaco
waxaa ka maqan waxa su-aasha soo qoray shareecada axkaamteeda ayaa qaarna waxay ku saabsan tahay xaalatu الاkhtiyaar qaarna waxay ku saabsan tahay xaalatu اlidiraar ama xaalatu اlxaaja markii ayna wax mushkila a jirin oo duruuftu caadi tahay safafka in laysku dhajiyo waa laazim waa waajib maxaa yeelay nebiga sal lla ly slam xadiis fara badan baa kaga soo aroortay in dadku isku dhagaan isku dhowaadaan waa amri jiray muxuu ahaay haddii safafku iskhilkhilaafaanna qulubtu iskhilaaftaa ka dhalan habaar baa ku yimid marka waa in safafka la isku dhoweeyo markay duruuftu caadi tahay hadday timaado duruuf keenaysa in dadku kala fogaadaan jiray kala qaadayaan xanuun baa laga baqay muxuu ahaay khatar kalaa imaanaysa cabsi kalaa timid markaasi waa xaal istinaa'iya waay xaaladda noocaas oo kaleeta marka shareecadu rukhas bay bixinaysaa waxay keenaysaa way raadinaysaa qaab salaaddii jamaacadana lagu xifdiyo dadkii u wada tukadaan mafsadadan iyo dhibkan laga baqayana lagu baajiyaa la raadinayaa markaasoo kaleeta way imaan kartaa ijtihaadaadkan ah in la yidhaahdo ha la wada tukado wixii laga baqayeyna si laysaga ilaaliyo looga taxadaro ha la kala durko markaasi xaalad caadiya ma ah nusuustani marka waxa weeye waciidka eedagay soo arooraysa waxay ku soo arooraysaa xaalad ay duruuftu caadi tahay ama hadday caadiga ka baxdo duruuf ay soo kordho istinaa'iya timaado marka iyadu axkaamteeda ay qaadanaysaa taysiirkii shareecada ayay aadaysaa waxay aadaysaa nusuus kaleeto oo markaasi maxaa wiqaaye iyo ku saabsan iyo halkaasay marka aadaysaa nusuus kale aadaysaa tii caadiga ahayd markaasi waxa way ka baxaysaa oo waciidkaasi markaa ma qabsanayo maadaama ay yani nusuus kale ay markaasi ku camal falayaan nusuustii taxadarka nusuuskii cabsida nusuustii matala xaajada iyo daruurada xaggaa la aadaya markaa wallahu aclam jazaaka allahu khayran su-aalta u yaro dhow waxay leedahay waxaa jira xadiid dhahaya ruuxii aan tukan 3 jimco oo isku xigta qalbigiis ayaa engegaya hadeerna masaajidii way xiran yihiin ma laga yaabaa inuu qalbiga na engego tii horey la mid tahay oo marka ay jumcada ay waajib kugu tahay waa markaad heli karto meeshaad ku tukanaysa aad tukan karto waay haddii aad meeshaad ku tukanaysay la waayo masaajidaad ku tukata la waayo shuruudaheedii la buuxin waayo markaa kadib jumca kuguma waajibaysee duhur baa kugu waajibaya laanna wax weeyaan waciidkan 3 jumca ruuxay dhaafto iyo jumcada ruuxii ka taga waa goorma waa markaad kari karto waa markaad awooddeedii leedahay waa markaad heli karto waay haddii aad heli weydo ama aad weydo ama ay suroobi weydo marka laa yukallifu llaahu nafsan ilaa wuscahaa fattaquu llaha ma statactum waay idaa amartukum biamrin faatuu minhu ma statactum waay karaan bay ku xidhan tahay iyo awood bay takaaliifta shareecadu ku xidhan tahay haddii awooddeedii aad weydo ama duruufteedii ay saamixi weydo ama duruuftu kuu saamixi weydo marka mukallaf kuma tihid laguma haysto markaa waxaad qaadanaysaa tii ay shareecadu kuugu bedeshay baad markaa ku bedelanaysaa oo ah inaad duhurkii tukato haddaad heli karto meelaad ku tukato jumcadii oo markaasi suurtagal ku ah markaasi waxa weeye adiga khiyaarkaaga markaa aad kaga baaqatood ku dayacdo marka waciidku waa ku qabsanaya markaa wallahu aclam jazaaka allahu khayran saa'ilkan kale wuxuu leeyahay aabbahay baa wuxuu u dhintay cudurkan coronavirus wuxuuna ka tegey alaabo qaali ah waxaana la dhashay wiil aan qaangaarin dadka qaraabada ahaana waxay soo ururiyeen lacag loogu talagalay tacsi lacagtaa tacsidoo soo aruurtay duqa miyaan u sadaqayn karnaa mise waxay gelaysaa dhaxalkii haddii ay dhaxalka gasho oo la yidhahdaa dhaxalka ha loo qaybiyo wiilkan yarka ee aan qaangaarin ma waxaa la sugayaa ilaa uu ka qaangaaro mise hadda isagoo yarba dhaxalka waan qaybsan karnaa waa dhowr masalo isa saaran waa midda koowaad ee horta odayga dhintay waxa loo soo ururiyey hadday tahay intuu noolaa wax loo soo ururiyey oo soo ururay hadduu yahay noloshiisa ku soo gaadhay isagaa iskale waana laga dhaxlayaa markuu dhinto hadday yihiin wax la soo ururiyey geeridiisa kadib meyd wax ma mulkiyo dadkii soo ururiyey niyaday ugu talagaleen baa markaa lagu bixinayaa hadday dadkii uu ka tegay ugu talagaleen iyagaa iska leh hadday dadkaa qaar ka mida u soo ururiyeen ayagaa iska leh hadday kulli ugu talagaleen kulligood baa qaybsanaya dhaxal ma aha markaas dhaxal ma aha
sidii dadkaa soo ururiyay ee ugu talagaleen mucaawano hadday ugu talagaleen mucaawanada ciday ugu talagaleen baa qaybsanaysa laana meyd wax loo soo ururiyo markuu dhintay kadib wax la soo ururiyo ma milkiyo hadduusan milkiyinna lagama dhaxlo taa waa mas'alada labaadi wax weeye dhaxalka caruur aan qaan gaadhin hadday joogaan ma la qaybinayaa mise intii qaan gaadhayaan baa la sugayaa maya waa la qaybinayaa ruux walba xaqiisa ayuu qaadanayaa caruurtan aan qaan gaadhinna cidda mas-uulka ka abaa waxooda loogu dhiibayaa bal iska dhaaf caruur aan qaan gaadhin oo bannaanka joogta iska badaaye ilmaha uurka ku jira lala sugi maayo qaybinta dhaxalka qaab waxaa jira loo qaybiyo oo ilmaha uurka ku jira in la garan maayo ma wiilbaa ma gabadhbaa ma nabad buu ku imaan ma meeshuu ku dhiman lama oga laakiin qaab baa jira cilmiga faraa'idka zaka loo qaybiyo dhaxalka loo qaybiyo oo wixii isaga loogu talagalay ee ku soo hagaagayay ayaa meel la dhigaya kadibna waa la sugaya inta kale dadkii iska lahaa la dhihi maayo kan uurka ha dhashay ma qaybsanaysaan kan haqaan gaadhay waad sugaysaan la dhihi maayo fawran markuu meydku dhintaba dadkii xuquuqdan iska lahaa waa loo qaybinayaa inay qaybsadaan oo ku kala baxaan hadday iyagu sugayaanoo ay isugu sii jirayso waa khiyaar way heli karaan laakiin ciddii tidhaahda waxayga hallaysiiyo anugu ma sugaye la dhihi maayo hebel haqeen gaadho la dhihina maayo uur baa jira ha dhasho qaabkii shareecadaa taqaana qaabkay u qaybin lahayd waa la qaybinayaa markaaba wallahu aclam jazaaka allahu khayran saa-ilkan kale wuxuu leeyahay sheekh waxaa jira masjid laga dhisiyey magaalada muqdisho odayaashii guddiga ahaa way dadaaleen laakiin weli waxbaa ka dhiman dhismihii masjidka odayaashii guddiga ahaa waxay istuseen inay u kaashadaan culimo kale oo la ururisa lacagta markay lacagta lasoo ururiyana baasinta laga siiyo culimmadii lacagta soo ururisay arintaana waxaa laga isticmaalaa inta badan tiifiyada soomaalida in culimada wax soo ururiyay lacagta masaajidka soo ururiyay baasinta laga siiyo diinta maxay ka qabtaa haddii ay tahay dad ujara oo la dirsaday laba arrimood bay kala tahay inuu ruuxu marka hore culimonimo iyo weji samafal iyo khayrdoon baan ahay iyo ilaahay dartii baan u shaqaynayaa inuu ku howlgalo kadibna markii wixii soo yimaadaan uu wax sheegto iyo inuu marka horeba nin shaqaysanaya yahay oo uu yidhaahdo aniga shaqadan waan galayaa aan gale waxaan u baahnahay oo shaqadan ku galayaa waqti baan bixinayaa juhdi baan bixinayaa waxaan yani waxaas iyo waxaasa ama wax joogta ama wax baasantii waxa halaysiiyo labadaasay kala tahay hadduu ruuxu marka horeba ujuuro lagu dirsado ama mushaar la siinayo ama muxuu ahaayey wax la isku ogyahay lagu heshiyo saa uu ku howlgalo haddii wuxuu ku howlgalay buu leeyahay laakiin waxaa laga maarmaana dadka wax laga soo ururinayo wax laga soo qaadayo waa inay fahansan yihiin ama ay og yihiin xoolaha laga ururinayo qaar ka mida inay u bixi doonaan kharash noocaas u bixi doonaan waxaan aniga kolley xaraj badan aan ka dareemayaa in dadkana loo muujiyo in wadaadku uu muxsin yahay oo ilaahay dartii u shaqaynayo maamulkan masaajidkuna sidoo kale muxsin oo ilaahay dartii u shaqaynayo dadka wax bixinayana aynan ogeyn oo laga yaabo hadday ogaan lahayn inay wax qaadanayaan inaysan wax bixiyeenba dhici karayso meeshaasi waxoogaa waxay igula jirta shubha igula jirta saas daraaddeed in la caddeeyaa fiican ciddii la dirayo ciddii wax soo ururinaysa ciddii shaqo gelaysa inay caddahay ujuuraday qaadanayso oo ay wax cad iyo heshiis cad uu ku howlgalo ididkiisa wuxuu helo waa nin marka adduunkiisa u shaqaysanaya waa nin adduunkiisa u shaqaysanaya shaar qaadanaya basanti qaadanaya wax raadiisa juhdigaa bixinaya wey sidaana wax ku qaadanaya wey wax la isku ogyahay buu ku howlgalaya laakiin marar badan waxaa dhacda in wixii inta yani la dado la iska howlgalo hadhowna ay dhici karayso xoolihii dadweynaha laga soo ururiyey masjid iyagu ay u bixiyeen inteeda badanba inay kharash u kacdo oo wadaadkii wax ururinayay telefishinkii wax ka ururinayay muxuu ahay qolihii kaalmaynahay kulli wixii in la qaybsado kadibna meeshii wax loo ururinaya wax ku hagaya inuu yaraado haddii suurada noocaas oo kale waayahan dambe weliba aada u soo badatay waxaa aniga taqriiban qanaacadayda inay khaldan tahay baa ii muuqata wallahu aclam jazaaka allahu khayran labada su-aalood oo ugu dambeysa su-aasheeda koowaad saa-ilkan wuxuu leeyahay sheekh anoo salaada ku jira ayaa hadal iga soo fakaday soomaali ah
si kadis ah anoon is ogeyn marka salaadii ma iga jabaysaa wixii aan ku talagal ahayn salaada ma jabinayo waquumuu lilaahi qaanitiin aayaddaa markay soo degtayba aamuska la faray saxaabada ridwaanullaahi calayh haddii ruuxa jahli u geeyo ama kelimadu ka soo boodo ama halmaan isagoo ishalmaansan ka soo baxdo salaadiisu jabi mayso waxaa daliil u ah xadiidkii mucaawiya mucaawiya nin saxaabada ka mid u ahaa nebiga iyo saxaabadiisu la tukanayey kadibna wuu hindhisay nin baa hindhisay ninkii markuu hindhisay buu alxamdulilah yidhi markaasuu wuxuu ku yidhi yarxamuka allah salaaduu ku jira markuu u duceeyey ayay dadkii fiirfiiriyeen markuu arkay dadkii soo fiirfiirinahayay salaad ku jiray markaasuu wuxuu yidhi hooyadiin idin weyday maxaad iga fiirinaysaan maxaa iga fiirfiirinaysaan buu ku yidhi wuuba sii hadlay marka markuu salaadii nebigu ka baxay sal alla alay wasalam ayuu u yeedhay markaasuu wuxuu ku yidhi salaada looma ogola hadal muxuu ahaayey si fiican buu nebigu u tacliimiyey sal alla alay wasalam oo markuu leeyahay weligay ma aanan arkin macallin ka fiican nebi maxamed sal alla alay wasalam marka nebigu waa toosiyey salaaddii soo celi muusan dhihin salaadda dhexeedu ku hadlay leanna wax weye waxaa u geeyey aqoon darra u geysay marka haddii ama hadalkaasoo fakado ama aqoon darra kuu geyso ama halmaan kuu geeyo salaadu jabi mayso insha allahu tacala wallahu aclam su-aasha ugu dambeysa barnaamijkeena galabta waxay leedahay sheekh gows ayaa xanuunaya waxay leedahay aabbahay oo dhintay xoolihii uu ka tegey ayaan masaajid ugu dhisnay intaan dhaxal ahaan loo qaybinin ee arrintaa ma sax baa xoolaha hadduu meydku ka tago isaga wax looguma dhisi karo loomana sadaqayn karayo allaahuma hadduu dardaarmay oo uu 3 meelood meel buu xaq u leeyahay inuu dardaarme haddii uu dardaarmay wixii uu dardaarmay dardaarankii waa laga fulinayaa oo 3 meelood meel hantidiisa ah wixii ka siyaadsan maya hadduusan dardaarmin iyo wixii 3 meelood meel ka siyaadsanba dhaxal weeye maadaama ay dhaxal tahay oo markuu naftu saa uga baxdaba milkiyada isaga waa ka wareegaysaa dadkii dhaxalkiisa lahaabaa milkinaya xoolahan oo isku leh iyagay marka la jirtaa iyagu wixii milkigii ku soo wareegay ee dhaxal u qaateen hadday markaa u sadaqaynayaan way heli karaan waa hadday ehel u yihiin tasarrufka noocaas hadday ehel u yihiin oo ay dad waaweyn oo qaangaadh yihiin hadday qaangaadh yihiin way u sadaqayn karaan way u bixin karaan xoolahoo dhan bay u sadaqayn karaan hadday uu ku jiro caruuraan qaangaadh ahayn hadday ku jirto lama bixin kara iyaga waxooda lamana sadaqayn karayo aabbana looma sadaqayn karo hooyana looma sadaqayn karo dhimatay caruurta yaryarkeen qaangaadhin waxooda ayaga iskale markay qaangaadhaan ayagu ama ha sadaqeeyeen ama iyagu ha isticmaalaan laakiin dadka qaangaadhka ah wixii dhaxal ku soo hagaagay way u sadaqayn karaan dadkii xoolahaasi asalaan ka soo jeedeen ama cid kaleba way u sadaqayn karaan wixii iyaga ku soo hagaagay dhaxalkooda ah wallahu aclam daawadayaal su-aalihii aad noogu soo dirteen bejka masjidka sigiska iyo tafsiirkii ka horreeyeyba ee uu noo soo jeedinayay sheekheena sheekh maxamed cabdi umal xafidahu allahu tacaala galabtu annaga intaan dib ugu kulmi doona barnaamijkan oo kale ah waxaa idinkaga tegaynaa sida in nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh